السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أمومنا إيو مركله عاوة هدي الله سبحانه وتعالى وكرال النقضاء ولا ليال وحان شرقرينينا أما أن وذاقينا استعمالك أما سيدا اللي إسوقو داويو qaniinyada shinida oo noqotay in ay qaniinyada shinidu leedahay munaafacaad badan isla mar ahaantaasna ay daawo u tahay cudurro fara badan in ay qaniinyada shinidaasi ay daawo u tahay hadaba waxa kamid ah lafa xanuunka murqa xanuunka kor xanuunka neerfaha oo qofka xanuuna iyo meelo fara badan oo mataqaana ay daawo u tahay shinida qaniinyadeeda hadaba cilmi baaritaan dheer oo muddo socday ayaa waxaa lagu ogaaday in qaniinyada shinidu ay soo kiciso neerfo badan ama ay qaado xanuunka oo loo isticmaalo qayb xanuun baabi'iyaha kamid ah dad fara badan ayaa waxay u isticmaalaan in ay ku ridaan ama ku baabi'iyaan xanuunka haya isla mar ahaantaasna uga faa'iideystaan faa'iido caafimaad ahaan in ay ka helaan meeshii ay ka qaadan lahaayeen daawooyinkaas oo mararka qaar keeni kara in ay dadka u keenaan side effect ama dhibaato kale ay gadaal ay kala imaadaan ayaa dadka qaar waxay door bideen in ay qaataan shinida qaniinyadeeda taas oo uga munaafacaad badan ay ka helayaan wixii ay daawada ka heli lahaayeen isla mar ahaantaasna aan ku reebaynin side effect aan ku reebaynin hadaba waxaa tusaale inoo ah islaantan waayeelka ah waxay qaadataa labo shini qaniinyadeeda ayay qaadataa meeshii ay ka qaadan lahayd irbad caadi ah isla mar ahaantaasna waxay dadweynaha la sheergareynaysaa in ay u isticmaali karto xanuun baabi'iye ahaan daawo badan ugu filan tahay inkasta oo aysan xanuunkii cudurkii oo dhan weli aysan gaarin in ay ka wada qaado laakiin ay awood badanna ay siinayso maalintii ay kaga shaqaysato nolol maalmeedkeeda ما شاء الله تبارك الله هذا ولا ليال وحا إسحسوسينينا شنيدا إن شنيدا قنينيا ذا شنيدا أو دنبا وحي علوش هذا كجربة إن أي استعمال كذا وصنة ويهاي سيدا ملبكا أما قيبها كل الدون أو ملبكا أما قيبها شنيدا لوغا منافعات صدا haddaba shinida waxay tahay isticmaalkeedu waa sunno haddana caafimaadkana waxay ka qaadataa qeyb weyn qofkii asaga ku ah allergy ku ah inta uusan loo isticmaalin ka hor waa in ay dadku ogaadaan in ay ku yihiin allergy iyo in kale sababta oo ah allergiga qofka ku ah ma qaadan karo mana isticmaali karo daawo ahaan uma isticmaali karo mararka qaarkood waxay keentaa ilaa iyo heer dhimasho oo qofkaasi waxay gelinaysaa qatar ayay gelinaysaa haddii uu ku yahay allergy haddii uu ku yahay shinida qaniinyadeeda cilmi baaritaankan waxaa laga sameeyay Mareykanka isla mar ahaantaasna waxaa nala sheergareeyay oo aan aad iyo aad aan ooga mahadinaynaa janaalka loo yaqaano CBS 3 ayaa soo qaatay waxaana jira bugaag fara badan iyo mataqaana maqaalo fara badan oo ku howlan ka hadalka qaniinyada shinida iyo sida ay u tahay sida la isugu daaweeyo iyo sida ay u tahay daawo اللهم صل على محمد وحيابها كله وان إذن لشر قرين دونا هدي إلهي سبحانه وتعالى وكرر للنقضاء هالكليب أو كلية كمسو كوبي كرنا لكن تن هذا وجدد إذن كليب كان وحوقها إن فيشوال أن وأرجنا استعمال كأن دتك خاطرته أما ساينتيستياشة سيدا متقنا الله استعماله قنية ذا شنيدة اللهم صل على محمد ولا ليال أني إذن كبا إلهي سبحانه وتعالى وحان كبريا إن ونقدقوا كوا سنة النبي كر وقاضة كان فائدة منافعات سجا حق الدواء يكون رقم كذا حق والبابا ولا ليالو هدي كهشان محالي هذا ما شاء الله تبارك الله
subscribe garaysta بإذن الله باري share garaysta waxaana idinla share garayn doonaa waxyaabo fara badan oo ku saabsan xagga caafimaadka dhanka cayilka ama qurxinta jirka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala u ka raali noqdo waxaa u jeedaa qurxinta wejiga ayaan u jeedaaye biidni illaah subscribe garaysta share gareeya biidni illaah ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen hanugu wada anfaco assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu